بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهين جدّي أبابلك برنامبحة جدّي أبابلك برنامبحة أيها هل كان وحكوا قبنا عن شركة جرائد وجدّد الشركة جرائد نوحوا يهي إن لقفل عليو هذا الكيسو يرماملك قبل كبنادر كاسو هذا النصيب درأه رنتي أو واحد لقحوا ماذا إن ماملك قبل كبنادر aan la soo dooranin ee magacaabida ku yimid maanta uu yiraahdo dadka gobolka Banaadir ee canshuurta bixinayay ma banaan bixi karaan si silmi ah oo nabadgelyo ah uma banaan bixi karaan dareenkooda ma muujin karaan inuu yiraahdo wax laga xumaado waaye waxa kale wax laga xumaado ah inuu maamulka gobolka Banaadir ku tilmaamo fal dambiyeed banaan bax dastuuri ah dastuurka qodobka 20aad ku qoran oo dastuurka Soomaaliya u yaalo uu qabo in la banaan bixi karo muwaadiniintan ay xaq u leeyihiin dastuuri ah banaanbax dastuuri ah muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay ra'yigiisa iyo fikirkiisa inuu soo bandhigo ayuu xaq u leeyahay qodobka 20aad ee dastuurka ay ku qoran tahay banaanbax silmi ah in la qabo karo waqti walbana la qabo karo cid fasax looga baahan yahay is jirin iyadoo sidaas ay tahay ayaan waxaan haddana ruqsad iyo ogolaashiyo ka soo qaadanay oo aan haysanaa wasaaradda amniga inaan banaan bixi karno ujeedada aan ka banaan baxayno waxay tahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir inay muujiyaan dareenkooda ay ka qabaan hufnaan doorasho in la helo dareenkooda ay ka qabaan kalitaliska wali si dhex jooga fila Soomaaliya guriga ummadda Soomaaliyeed inuu ka soo baxo dareenka shacabka gobolka Banaadir ay ka qabaan afgambigii dhicisoobay ee la doonay in lagu qaarijiyo prime ministerka 27 bishan December bisha hore la soo dhaafay dareenka shacabka inay muujiyaan gumaysiga iyo maxalli xadgudubyada lagu sameeyay dadka gobolka Banaadir ayaan rabnaa dareenkeen inaan ka muujino waxaan nahay shacab Soomaaliyeed waxaan nahay dad si nabadgelyo ah oo silmi ah raba inay ku banaan baxaan waxaan leenahay waxa ay sheegteen waa been waa wax qeyr dastuuri ah waa wax qeyr sharci ah wax sharciyad aad u haysataan inaad banaan bax diidaan ama ra'yiga dadka aad caburisaan sax ma aha midda kale waxaan leeyahay taliyaasha ciidamada iyo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeed waxaan leenahay ciidanka Soomaaliyeed ha ka baxo siyaasadda sida maalin dhaweed ay sheegeen taliyaasha xoogga iyo booliska afarta taliysida ay sheegeen ballanqaadkoodii ha fuliyaan shacabka sida nabadgelyada la ku banaan baxayaysan ka hor imaanin yaan loo adeegsanin yaan lagu kicin gaboodfal iyo dulmi iyo tacaddi dadka aan lagu sameynaa leenahay waxaan annaga ka haysanaa ruqsad aan ka haysanaa wasaaradda amniga ayaan ka haysanaa waddankan hal dawlad ka jirto halkaas dawlad amarkeeda lagu shaqeeyaa halkaas dawlad nidaamka iyo systemka iyo dastuurka dalka u degan ilaaliyaan leenahay maamulka gobolka Banaadir shacabka gobolkana waxaan leenahay walaalayaalow soo baxa maalinta khamiista 13 bisha January 2022 khamiista soo socoto bari dambe ah soo baxa malaayiin qofood ha soo baxdo ra'yigiina muujiya waxa diidantiin sheega cid idin caburi karta malahan cid idin dili karta cid idin dhibaatay karta malahan wax allaale iyo wixii meeshaas ka dhaco waxa mas'uuliyadeeda qaadi doona qolada maanta tiri lama banaan bixi karo qolada tiri fal dambiyeedaan u aqoonsanahay tiri wax laga xumaado waaye warkii daraad cali yara sheegayna maanta inuu Cumar ku hadlaayo Cumar Filish maanta gudoomiyaha inuu ka roon yahay moodeen inuu ku hadlaayo ma moodeenin runtii wax laga xumaado waaye dadka ducufada ah oo dadka aflagaadeynaayo oo gobolka Banaadir ka shaqeynaayo oo canshuurta dadkan leeyihiin warqado yar la soo qoro ku bixinaayo dad kale ku laaluushayo ma aha dadka gobolka Banaadir waa hadlayaan waa banaan baxayaan waxay diidan yihiin waa sheegayaan dictatorka waa ka soo horjeesanayaan ra'yigooduna waa cabiraan insha Allah tacaala waxaan noo ballan ah maalinta khamiista ah iyo malaayiin qofood iyo daljirka dahsoon iyo banaan bixi qarniga inaan sameeyno insha Allah tacaala aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.